Okay, saaciwaanka ku soo aragtay fiidiyogan wuxuu ku saabsan yahay gabadhii ciyaaraha 10 mitir ee China ka dhacayo nooga qayb gashay ama wadankeena matalaysay arintan ama ceebtan meel walba ay gaartay meel walbana waana lagu qoslayaa waxaa jiray dad Japanese ah oo hadda Japan degan oo waqti hore aan isnaqaan jirnay dadka shalay WhatsApp-ka waxay ugu soo direen arintan iyagoo dhahayo arintan newska wadankeena qaybta shactirada ayaa soo qaadatay marka annaga hadda Soomaali nahay arintan oo kale haday dhacdo wax ceeb ah uma aragno sababtoo dhaqankeena wuxuu ku saleysan yahay qabyaalad iyo cadaalad darro annaga hadda Soomaali nahay umada kale ma dhaxgalno warka ma hayno umada kale sideenoo arkaan annaga waxaan ahay dad isla weyn waxaan u haysanaa adduunka annaga inaan u fiicannahay laakiin umada kale saas ma noo arkaan umada kale waxay noo arkaan dad genetically bini'aadanka ka aqli liito umada kale waxay noo arkaan dad aan noolaan karin macaawina la'aan umada kale waxay noo arkaan dad iyagana ammaan isa siin karin umada kalena ammaan siin karin marka meesha adduunka hadda aan ka joogno annaka ayaa dooranay inaa xanaaqna ma ahan arintan oo kale markay nagu dhacdo sababtoo ay dhaqankeena wuxuu ku saleysan yahay qabyaalad iyo dulmi wallahi marka aragto waxyaabahana laga qoro dadkeena laga qoro dalkeena laga qoro waa naxaysaa laakiin maxaa u xanaaqeena markana la caayo maxaa u xanaaqeena markana laga qoro waxaanan jecleen sababtoo annagi ayaa saan u dhaqmeeno haday suurtagal naga tahay hadii dalkeena suurtagal ka tahay arintan oo kale inay dhacdo inaa xanaaqna ma ahan markana la caynaayo by the way ceebtii u dambeysay tan ma ahan ceebo badanna way soo socdaan annaga dhana ceeb ka suubsan dhaqankeena ceeb ka suubsan dawladeena ceeb ka suubsan wax kasto gacanta aan kula jirnana ceeb way ka imaanaysaa sababtoo dhaqankeena wuxuu ku saleysan yahay edab darro dulmi cadaalad darro iyo qabyaalad marka hadda waqti badan ma ku dhumineyno gabadhan siday suurtagal ugu noqotay ciyaarahan inay ka qayb gasho iyadoo Soomaaliya matalayso taas qof kaste uu og yahay waxa kaloo jiraan dad badan oo dhahayo gabadhan Soomaaliya ma matalaynin waxay matalaysay jaamacadaha Soomaaliya ku yaalo tartanka meesha ka dhacay wuxuu ahaa tartanka jaamacadaha laakiin ciyaartooyda ka qayb galaysay ciyaartooy walba wuxuu ku labisnaa maaliyada wadankiisa magaciisa marka la soo qorana waxa la soo raacinayay calanka wadankiisa marka gabadhan Soomaaliya ay matalaysay waxa kaloo jiraan dad badan oo dhahayo gabadheena waxa ka muuqday diyaar garow la'aan taas bullshit waaye dadka saas dhahayana dad sportiga wax ka garanayo ma ahan fiir ciyaartooyga levelkan oo kale markuu soo gaaro natiijada uu keenayo waxa qayb weyn ama door weyn ka qaadanayo geneticskiisa gabadheena ma lahan geneticski loogu talagalay ciyaaraha noocan oo kale gabadheena hadii 10 sano la soo diyaariyo macalinka adduunka u fiican xataa loo dhiibo waligeed gabdhahan kama daba gaarayso sababtoo ay isku genetics ma ahan gabadheena way gaaban tahay luga gaaban ay leedahay gabdhaha kale luga dhaadheer ay leeyihiin gabadheena marka la soo diyaariyo gabdhaha kalena la soo diyaariyo markay ordayaan talaabada gabdhaha kale ay qaadayaan iyo gabadheena talaabada ay qaadayso isku mid ma ahan gabdhaha kale markay hal talaabo qaadaan gabadheena waxay u baahan tahay laba talaabo inay qaado taas xitaa problem weyn ma ahan hadii si fiican loo soo diyaariyo problemkaas wax yar waa la xarin karaa laakiin dibka meeshu ka imaanayo ama geneticska meeshu qayb weyn ka qaadanayo meeshan waaye gabadheena muscle fibreskeeda iyo gabdhaha kale muscle fibreskooda isku mid ma ahan xawaaraha gabdhaha kale ay ku dhaqaaqayaan iyo xawaaraha gabadheena ay ku dhaqaaqayso isku mid ma ahan meeshaana waa genetics muscle fibreska ayaa qayb weyn ka qaadanayo training bes ma ahan fiiri tusaalaan ku siinaa baawur Toyota ah horsepowerkiisa uu yahay 60 iyo baawur Ferrari ah horsepowerkiisa uu yahay 300 isku si ma u dhaqaaqayaan hadii hal mar wala dhaqaaqaan waxa 100% dhaqso u hor dhaqaaqayo Ferrariga sababtoo horsepowerkiisa 300 waay Toyotadana 60 waay marka muscle fibreska saas oo kale waay bini'aadanka uu kala muscle fibres duwan yahay qofka markuu meeshan oo kale soo gaaro ama ciyaartooyga markuu meeshan oo kale soo gaaro geneticska qayb weyn ayuu ka qaadanaa training bes ma ahan marka ciyaartooyga markuu ka qayb qaadanayo tartan noocan oo kale waxa jiro shuruudo looga baahan yahay shuruudahaas waxa kamid ah tusaale ahaan waxa rabtaa ciyaaraha 100 mitir inaad ka qayb qaadatid waxa jirto ugu yaraan saacad loogu talagalay inaad ku ordi kartid saacadaas markaa soo buuxisid ama scoorkaas markaa suubisid scoorka ugu yar oo loogu talagalay markaa soo suubisid markaas ayaa ka qayb qaadan kartaa waxa jiraan ciyaartooy badan oo waqtiyadii u dambeeyay Soomaaliya matalay qaar badan oo kamid ah scoorka ay keeneen xataa ma ahan scoor dugsi sare lagu matali karo shalay waxa dhageysanay wiil nageeyo dhahaan waxa qiyaasa Holland mise Belgium meelahaas uu ordaa kaalmo fiican oo orodka ugu jira wareysigiisa dhageysanay wuxuu yiri
waxaa jiraan ur ciyaartooy xiriirka Soomaaliya uu diyaarinayo ciyaartooydaas hal mid oo scoorkii loogu talagalay suubin karo kuma jiro ani waxaa qabaa ciyaartooyda sadda la diyaarinayo scoorkii loogu talagalay hadaysan suubin karin in la keenin ama inaysan ka qayb qaadan ciyaaraha soo socda sababtoo ceeb lay keenayaan anaga hadda Soomaali nahay orodka waan ku fiicannahay hadii la raadiyo dad orodka ku fiican genetics ahaan orodka ku fiican waa la helayaa laakiin taas waxay u baahan tahay aniga adiga sa u fikirayno inaan bedelno dhaqankeena inaan bedelno wadankeena inaan dhisano markaas kadib taas waa la gaari karaa laakiin saan inta u dhaqmeeno meel ma gaarayno adduunkana waana lagu qoslaa fiiri tan ina og tahay khasab waaye ciyaartooyga markuu ka qayb qaadanayo tartan heerkan oo kala ah waxa qayb weyn ka qaadanayso natiijada uu keenayo geneticskiisa dabcan diyaar garowna waa loo baahan yahay laakiin geneticskana lama huraan waay tusaale hadii xamar maanta 20 qof ee ku alamiinteynayso 20 kaas kan u fiican soo qaadatid taas macnaheedu ma ahan inuu natiijo fiican ku keenayo qofkaas la soo qaatay geneticski loo baahnaa diyaar garowgi loo baahnaa haduu meesha ku haynin ceeb loo keenaa waxaa la rabaa waxaan dawladda suubin karto waxaa la rabaa dad aad u badan in la isku keeno markaasna dadku ugu fiican ugu geneticska fiican in laga qaato markaas kadib ayay natiijo imaan kartaa waxaana dawladda suubin karto dawladna waxay imaanaysaa aniga adiga sa u fikirayno marka aan bedelno dhaqankan qabyaalada iyo cadaalad darrada ku dhisana marka iska dhaafna markaas kadib ayay dawladda imaanaysaa asxaabta fiidiyoga meeshan ku soo gabagabeena waxaan noo balanay fiidiyoga ku xigo balanteenu waa caafimaad iyo qabyaalad la'aan